السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada maanta waxaan idin wadaa ciwaanka cusub maanta wuxuu yahay noocyada maqaarka hadaba aan ku weydiiyay adigu ma garanaysaa nooca maqaarkaaga inaad taqaanid nooca maqaarkaaga waxay ka caawinaysaa in laga maarmaan u tahay daryeelka aad u sameyn lahayd maqaarkaaga products-ka oo maqaarkaagu ogol yahay oo isticmaal lahayd iyo ka aan ku haboonayn maqaarkaaga oo aad ka ilaalin lahayd hadaba haddii qof uu isticmaalo product ama cream kaasoo ku fiican yahay jirkiisa ama wax badan uu ka faa'iiday qasab maahan adigana inuu ku afro maxaa yeelay dadku maqaarkooda aad ayuu u kala duwan yahay maqaarka wuxuu ka kooban yahay 5 nooc dadka maqaarkoodu aad ayuu u kala duwan yahay dadka qaar maqaarkoodu wuxuu noqonayaa maqaar normal skin type maqaar normal oo caadi ah dadka qaarna maqaarkoodu wuxuu noqdaa oily skin type maqaar dufan leh dadka qaarna maqaarkoodu wuxuu noqdaa dry skin type maqaar qalalan dadka qaarna maqaarkoodu wuxuu yahay combination skin type oo macnaheedu yahay maqaar qalayl iyo dufan isku jira dadka qaarna maqaarkoodu wuxuu yahay sensitive skin type oo wuxuu u nugul yahay waxyaabo hadaba 5 nooc ayaa loo kala qaadaa maqaarka aan ku bilaabo midka koowaad normal skin type dadka maqaarkoodu uu yahay normal skin type waa dad maqaarkoodu uu yahay nadiif malahan wax dufan ah mana ahan mid qalalan dadkaasi ciladooda ama inta ku dhacday aad ay u yartahay nooca labaad ee maqaarka waa oily skin type dadka maqaarkoodu dufanka leeyahay inta badan waxay ka cawdaan in maqaarkoodu aad u dhaldhalaalo dufan fara badan leeyahay nabro badan leeyahay dulduleelo leeyahay iyo waliba cilado kale aad fara badan nooca saddexaad ee maqaarka waa dadka maqaarkoodu uu yahay dry skin type waa dad maqaarkooda inta badan ka cawdo qallayl jactad iyo waliba qalfoof sidoo kalena waxay yeeshaan ama ay ka cawdaan cuncun nooca afraad ee maqaarka waa dadka maqaarkooda uu yahay combination skin type waa isku dhaf macnaheedu waxay tahay maqaarkooda qayb wuxuu leeyahay dufan qaybna wuxuu yahay qallayl inta badan waxay dadkaasi ka cawdaan inay dhabanada ka yihiin dad aad u qallalan ama dhabanada ka qallalan yihiin halka foolka hore ee wajiga sanka iyo waliba garkana ay dufan ku leeyihiin dadka maqaarkoodu isku dhafka yahay waxa ku adag inay si sahlan ku doortaan product ama kareemka ay isticmaali lahaayeen dadka maqaarkoodu isku dhafka yahay waa noocyada maqaarka kuwa ugu caansan waana midka ay dadku u badan yihiin in qayb jirkooda dufan yeesho qaybna uu qallayl noqdo hadaba nooca shanaad ee maqaarka waxaa la yiraahdaa sensitive skin type dadka leh maqaarkan sensitive-ka waxaa inta badan lagu arkaa xanfar bilbil gudguduud iyo waliba qallayl dadka leh noocan sensitive skin type-ka waxaa la arkaa marar badan haddii ay marsadaan kareemada qaar in ay ku kiciyaan xasaasiyad oo ay dareemaan xasaasiyo kadibna jirkoodu cuncun iyo uu yeesho xanfar iyo waliba bar dadka leh noocan sensitive skin type-ka waxaa la arkaa inta badan productyada inay doortaan inay aad ugu adag tahay productyada qaar markay marsadaanna ay ku dareemaan xasaasiyad oo lagu arko barar gudguduud iyo waliba cuncun hadaba haddii aad kala fahamtay noocyada maqaarka waxaan kaa rabaa inaad ila wadaagto nooca maqaarka haddii aad soo gaartay gabagabada barnaamijka waan kaaga mahad celinayaa sida wacan ee aad inoola socotay waxaan ku leeyahay fadlan like-ta share-ta follow-ga haynaga hilmaamo sidoo kalena subscribe saar YouTube channel-keena Easy Doctors